ma badinayno. Okay, focus marka focus waa maxay? wax diiradda la saaro. caqligeena bini aadamku alla subxaana watacaala umuusan talagelin multitasking waxa la dhaho in qofku uu laba shay isu qaban karo. marka hore waa hal shay inuu diiradda saaro, markuu dhammeeyo shay kale u gudbo. tusaale, haddaan dhaho wax baan akhrinayaa, telefoon baan ku hadlayaa, message baan qorayaa, ama cashir baan daawanayaa, telefoon baan ku hadlayaa, waa distraction baa loo yaqaanaa. focus opposite-kiisa waa maxay? Distraction. marka waxyaabo badan bay bini aadamku soo mareen. waxaa ka mid ahaa in inflator la isticmaalo oo bahal koomba intay madaxa gashtaan. ninkii ugu horeeyey wuxuu sameeyey koombo ayuu tube ku xiray, afka naqsisu qofka uga qaato, degihiisana aysan u maqal sida dhawaaqa gawaarida, mataqaanaa albaabada lagu soo qaraacayo, dadka sawaxankooda iyo buuqooda, waxyaabaha. gadaal ayuu wuxuu ka ogaado xasinaysa waxba dareen idanka caqliyadiisa mooye inay aqbasho waxyaabo muhiima. marka wuxuu kusoo gabagabeeyeyba qalabkan, wuxuu kusoo gabagabeeyey inuu dhaho waxa ugu horeeya nu mashquuliyo caqligeena number 1 ka ah. marka haddii aad barataan focuska, aad iyo aad buu muhiim u yahay. anigu aad iyo aad buu ii caawiyaa because of waa mental energy aad iyo aad u awood badan inaan subaxdii horta intaan kaco waxyaabaha ugu muhiimsan focuska saaro. waxaa kale oo aniga aanan enerjigayga iga dhuuqayn inaan iska ilaaliyo oo aanan diiradda saarin. marka maanta waxaan rabnaa practical inaan qaadano. qof meel u cad yahay, meel kale ka madow oo practical inaan tuso insha Allah. waa muhiim. marka focuska magacyo badan baa kusoo aroora. sida anigu waxyaabo badan aad iyo aad u diido waxa arday inuu wixii ku wareero. focus waxaa la dhahaa concentration. qofka inuu concentration daa aragto waa focus baa laga hadlayaa. waxay kaloo dhahaan flow zone. Okay, flow zone ayay dhahaan. magacyo badan baa kusoo aroora. marka muhiimka magacyadu waa exact names with different exact names. waa magacyo isku eg oo aan macno, laakiin wordska waa kala duwan yahay, laakiin hal macno ayay isku soo aroortaa. marka trading anaga maxay muhiim inoo tahay? because anaga waxaynu haysanaa waxa loo yaqaano forced awareness. forced awareness waa muhiim. forced awareness waa shakhsiga goortii uu xanuunka bato inuu perceptionkiisa ama aragtidiisa bedelo. suuqa ayaana kugu qasbaayo. marka waxaa rabaa in marka aad fahantaan sababaha aan waxaa maanta u sameynayno insha Allah, oo si practical aynu u qaadano insha Allah bidnillaahi kariim. horto ardayda qaali, inshallah waxaynu ka soo hadalnay emotional control and self discipline is very important ayaynu niri. waxyaabaha ugu weyn oo suuqan qofka hormaraya. Okay, haddii marka practicalkana maraynaa kadib dhammaantiin codadka waa furaysaan. mid kasta waa weydiinayaa. waxa waaye waxaa idiin geenayaa video baynu isla tegaynaa. videogaas ardaydu badan yihiin maasha Allah. videogaas isla tegaynaa. videoga markaynu isla tagno ayaa insha Allah waxay ii sheegi doontaan shakhsi halkan boodboodaya inaad focuskiina saartaan. inta jeeru boodboodo ama dhabarka ku boodo, bahal boodboodaya ayuu ku boodboodaya. inta jeeru boodboodo ama lugaha ku boodboodo inaad ii sheegtaan. waad tirinaysaan shakhsiga. waa yarka halkan boodboodaya. so horta waa loo jeedaa sama video. very good. marka waa shakhsiga buumaha iyo funaanada. marka bal waxaan tijaabinayaa maanta dhalinyarteenan inta bal focuskooda uu fiican yahay oo diiradda waxay ku mashquulaan ay arki karaan oo si fiican ay waadix u arki karaan iyo in kale. marka waa yarkan waynu bilaabanaynaa. waad tirinaysaan qof walba ha tiriyo inta jeer ninka boodbooda insha Allah. diyaar baa leeyahay soo maha? okay, hay waa bilaabanaynaa. 1 2 3 Go. How many jumps did you count? meeqa bood
ما يقوم بودنك استوى صراحة صدح يتون حبو هاي يا كله سجال جير سجال جير بس سكارتشر هاي يا كله 9 أستاذ سكارتشر أفرتون استاذ هاي أفريتون يا كله سيارة اوكي دima waxa iskaga khaldantay oo maleena inuu futada ku boodayo inuu lugaha ku boodayo kay xisaabinaysan iyo dhabarka markuu futada dhiganaya markuu dhabarka dhiganaya muhiimadda waxa waaye inaan ku cilino hal mar baan ku cilinaa waxa rabnaa ha wuxuu dhan inaa xisaabisaan exactly muhiimaddu waa inuu hawada ka kaco uu kor u kaco intaas xisaabinayna okay way faantaata Soomaa بس لكن دب ماله إن كوسو علماي لكن فوكس كأنه حس نكن وصارنا أما حساب تسيد سحر أو حسابية نكن كوي تمنشر ببودي مركز عايشة ماشية تعلوها معي ميا أركي سين بهال غوريلا أو ميلها مرمرايا يا أوتشيدي غوريلا سو قلاي environment كتبنا قدال أولابتي يعني environment لما هو جدا ضد بدن بماشان قدامن بهال كسو قلا بهال كاملوجي بل سوق إنه علة سوق كعلنا. If you answered 11, congratulations. Okay, كوي تون بودو واي. لكن ما لا أركي بهال كان ما أركي سيد. هاي Exactly. marka caqligan awooddaas leeyahay waa environment fiir maxaa u dhaxeeya ninkan bahalkan waxa uma dhaxeeya laakiin adiga focuska ugu saarnaa ninkan diiradaada tan bay saarnaa tan baa kaliya u jeedaa marka tan waa waxa u jeedid waxaan kale bahalkan halkan wareegaya ma arkis fiir laba talaabo soo qaaday laba talaabo gadaal u qaaday waa kaatay wajida kuus marka awoodda awareness-ka qofka inuu concentration sameeyo waa muhiim maanta aniga marka through experience waxa ii sheegay qoor aniga waxa shakhsi intuu markuu wax akhrinayo wax duubayo ama cashar aad iyo aad ba focuskayga u saari jiray dhowr mar baa jirtay inaan dhibsan jiray sawaxanka dadka laakiin waaga caqligayga markuu dhisnay waa dhibsan jiray inaan meesha ka cararo inaan buuq isku furo inaan loo waxaan xiiqeela inaan karaahiyeysto environmentigii inaan because cilmigii baana fahamsaneen waxaana fahamsaneen waxa markaa focuska saarto wax kale dhan uma jeedin waxa kaloo caqabad ugu ahayd gabadhayda khayr allaha si hadda waa isfahanay in markaan wax diiradda saaraya ila hadlayso ee ii mooday isbeddel inuu igu yimid because of waa dareeminaa Soomaa markaa cashar ama daawanaysid ama markaa wax qoraysid ama markaa wax akhrinaysid qofkii agtaada uu kula hadlaayo ma u jeedid sida hadda aynu gorilaha aynu u jeedin buu hadalkiisana aadan maqlaynin oo kale aadan intentionkiisana ka waran hadduu maanta ku agmarmarayo hadduu laba jeer ku qornafta xataa sometimes maba dareemaysid because zonkiyaa ku dhex jirta energygaagi dhammaan waxa iskugu geysay waxaas aad haysid so way ii fiirsato ifir dhojer waxay aday kaale maxaanan ii qadarinin maxaanan iila hadlin markaas hadda waxaan dhaha anigu xilligaada igu soo aado miya fahansanaa laga yaabo inaa cashir ku dhex jiro laga yaabo so laakiin markii qofku uu fahmo awooddan uu ka faa'iidaysanaya because ba aniga waxaan discover gareeyey mental frameworkgayga markii suuqana imaanaya structure waxaan xambaarsanaa aanan lossaska aan afford garaynayo so lossaskayga kaliya focuska saarnaa lossaska iyo cabsida waa focuskayga saarnaa energyga dhammaan wuxuu saarnaa cabsi iyo khasaaro okay fear of loss I was fearful so markasta concentrationkayga focuskayga uu saarnaa cabsi iyo khasaaro waxaa la samayn jiray waxa aan ka cabsanayso markasta ogow waxa focuskaaga saaran yahay oo energygaaga ku baxayo waa dhacda inaad samayso there's no other way wrong because of losses maxaa u baqaysaa maxaa u diidan tahay oodan u aqbalin maxay tahay cabsidan
waa laba wax isjiidanaya oo xaqiiqdii marka mental environmentiga waa sidaas ayuu u awood badan yahay so cid ani maanta cid fiiri bini aadamkeena qof maanta haysto male mental capacity-ga uu wax kasta uu ku ogaan karo environment-iga ka socda hal mar sida aad maanta hadda u arki weydeen idinka shakhsiga oo focus saarayseen shaashadaas ba environment-igu ahaa waadna arki weydeen guurilihii intuu inii soo laba talaabo soo qaada haddana laba talaabo laaf ma arki kartaan sidaas si lamid ah ilaahay uma watalagelinba multitasking caqligeena intada okay waa sidaas si lamid marka haddii ka waran suuqa focuskaagu saaray waa 100% tee 100% kaas baad arkaysaa haddii suuqa lossaska uu ku saaray focuska dee lossaskaas baad arkaysaa waxaa noqonaysaa outcome driven mindset outcome-ka kaliya focuskiisu saaran yahay okay haddii ka waran marka fursadaha kale jiraan suuqa fursadiisa miyaa arkaysaa ma arkaysid markasta waxaa saaraysaa losskaas suuqa fursad buu ku siinayaa fursaddii ma arkaysid laakiin haddii aad fahanto awoodda concentrationka waxaa u moodaysaa indhahaaga inay caad laga qaaday haddaba haddaynu focuskana u bedelo ka waran inaynu losska aqbalno marka waxaa imaanaysa fursadda inaad aragto awareness-kaagu isbedelaya waxaa loo yaqaanaa perspective shifting ama perception shifting yani inaad aragtida bedeshay that's it only took mental energy waxaan niri it takes seconds even 1 minute inuu qof bedeli karo concentrationkiisa wuxuu focuska saaraa inuu bedelo and that's why waxaynu maalin baraneen focuska inaynu saarno inaynu avoid gareyn losska bad aynu aqbalno because mental energy-ga labadaa mid buu focuska saaran yahay wataa inri multitasking ma jiro war labadaa kay tahay adiga inaa avoid gareynayso losska iyo inaa aqbashay losska labadaa kay tahay labadan mid baa tahay maanta energy-gaaga iyo focuska labadaa mid haddii kan uu energy-gaaga ku socdo focuska habarteeda ka tahay inaad fursad aragtid ama aad ka faa'iidaysato markasta waxaa iska tahay qof hesitation cabsi judging wax inay kaa noqoyin ba markasta because waa focuskaaga haddii kan kalena waa nin maalin fursad u furan tahay suuqii another level u arka 3D perspective ayaa loo yaqaana fursaddii haddii fursadda imaato kalsoonida leh oo uga faa'iidaysan lahaa labada marka ilaahay waa u sameeyay laakiin labadooda waxaa kala duwan diiradda meesha u saaran tahay marka waa mental energy aad iyo aad u awood badan ay labadan kee focuskan maanta saaran bal aynu isweydiino ma avoid gareynaysaa losska oo marka losska miyaad diidan tahay mise losski ayaa aqbashay labadaa hal qof hayga jiro kee focuskaagu saaran jawaabta front ustaadi waxaan saaranay anuu accept losseska inaan aqbalo focuskayga halkaas u saaran yahay ayaa kale ustaad waa ka duwanahay waa looska waa nabcahay waane aad baan uga baqaan ayaa kale أنا مركز واقبل وحصلت مركز لوسك عن أقبله وأنا كعرّي yarka dhahay looska waa nabcahay maasha Allah yar nagu cusub Saciid baa lahaa hadda dhow nagu soo fiiray laasiyo insha Allah iftiina casharada dambe aad iyo aad fikirkaas insha Allah u bedelmaysaa orto
qofka bini aadamkood hal wax waa inuu fahmo exclude and include ayaa jira qofka inuu wax diidan yahay oo exclude sameynayo iyo qofka inuu include wax uu isku yani uu aqbalo uu kusoo darsado maalinlihiisa this is my I include this and this so lawsku markasta exclude haddaad sameynaysid oo aad isku dayso inaad ka saarto businesskan waa daalisa kabaha kaa dhamaana keliya timaha kaama dhamaan kabaha iyo jeebka iyo dhammaan energygaagii dhammaan baa dhamaysay exclude haddaad sameynaysid okay you just trying to get rid of loss haddii aad isku dayso in losska aad baabi'in karto shiftigaaga waa muhiim anaa hadda idin sheega eeg Saciid if you listen to me I'm telling you the truth ama diid ama yeel haddii maanta fikirkaagu yahay inaad exclude ku samayso losskii oo aad ganacsigan loss aad dhahdo ma jiro waa inaan diida runta kuu sheegaya dad bay ku qaadatay 5 sano inay fikirkaa bedelaan oo diiday okay waana waxaan ka hadlaynaa forced awareness waa maxay suuqu uu ku qasbay markii gaadiidkoodii guryahoodii hantidoodii shaqadoodii lacagahoodii dhammaan laga suuq uu ka qaatay markaas xanuunku uu ka tambatay waxay waayaan ay garan waayeen doorteen inay isbedelaan suuqu uu kugu qasbayaa because of suuq maaha waxaa moodnay ama haddii inaad runta aqbasho oo include ku samayso losskii oo dhahdo okay it's a part of the business waa inaan la dhiilgareeyo oona xakameeyo oona aqbalo that's it labada joosadaa leh either you exclude or include marka lossku is a part of the business waa inevitable halkee wax uma qashaan see wax uma qashaan inevitable waxa hadduu yahay waa wax aan la ilaa yacni qasab ay tahay must it is must يعني must haddaa aragto must waa ganacsi ku jira maxaa marka iskugu daalinaysaa system kaa badbaadinaya male yes system kaa badbaadinaya male wax kaa badbaadinaya waa inevitable wax istaraatiijiyad kaa badbaadinaysaa jirin shakhsi kaa badbaadinaya jirin waxaa doonta akhri loss it occurs wuu dhac laakiin adigu waxa kaliya aad badbaadsan karto waa akhlaaqiyadka iyo ruleska iyo planka waxa raacay Saciid maxaan kuu sheegay you have to include dhammaantiin waa ina include losska kusoo darsataan a part of the daily routinekiina maanta tradekan qaadan tusaale yar inuu meeshan ku laabo hadda lacagtan ay sugaynaa insha Allah jib waa hadday gudaha inoogu soo laabato wixii continuation bal inuu halkan sidayno content ilaa halkan bal lacagta ayno podcast include waxa inoo aanay ama hadda meeshan haddii lacagta qaadano lossku waa inevitable waa maxay wax aadan joojin karin mar haddii focuskaagu saareen loss waa inevitable lossna dhacayo it's all right kala ka faa'iideysanaysaa focuska marka waa inuu bedelo focuskaaga waa inuu saarneen halkan hadduu halkan saaran yahay it's done waxaa ka cabsanaysa la sameynaysaa that's it because you will create the loss itself jini ninka saaraa maxay Soomaalidu dhahaan jini ninka keena saar adiga jinka inaad saartaa loo baahay marka haddii aad fiiri that's mental caqligeena saas u shaqeeya mar kasta oo waxa aad diidan tahay focus ka saarto waxaas la sameynaya tijaabiya kun jeer soo inuu ka dhicin waxa diidaneed haddii aad focus ku saaran yahay inaas waa sameynaysaa laakiin marka aqbasho ma sameyn kartid just waxa aqbasho la sameynaysaa waa powerful kun waa diidanta Soomaa waxa diidanaa la sameeyay khaladaadkii cabsidii iyo joogteynaysaa waa aqbasho ma wax aqbasho la sameeyay takalo ugu yaabka badan wax waaye
waxaa arkaysaa shakhsi wuxuu ku leeyahay maalinta aan khasaaro maalintaas waaba madaxay kala wareegay hadde waa waxa focuska saaraysid de so inta inuu ku dhicin this thing forced awareness oo waxa haysata laga qaadan wada duqmoowin oo kabuhu kaa dhammaan now it's opportunity inaad fahamto aan ku sheegay is that very simple. Law school is part of the business. Laakiin adiga your best interestiga wax waa inaad focus saarto processka focus saarina markasta ardada waa idin sheegaa waxa ka dambeeyo sector dam maanta idin sheegay focuska haddii aan saarno processka jeclaanaysa outcome dhan ma trigger markuu ugu sameynayo marka outcome-ka focuska saarayso wax aa qasbaysaa u tijaabso weliba outcome hadaa focuska saarto outcome-kii waxbaa qasbaysaa waxbaa ceelinaysa wax zero failed okay you will fail laakiin process markaad tahay different mindset you will relax state of mind ayaa loo yaqaan relax qofku markuu yahayna oo meeshu markuu korayo okay maxaa process maalin kasta inaad trade galis qasaba noqonayso xorriyadaadii shaashad ma dul taagnid waxaa ku xisaabtamaysaa taqaan waxaa raadinaysaa taqaan that's it relax ayaa ku jirtaa no hesitation no turning no wax ay ku ceerinaya iyo waxa ka cararaysid iyo waxa qasbaysid iyo ma jiraayo and that's where you have to put your focus inaad marka dadka weydiiyaniyo maxaa sidee relax u tahay maxay tahay cabsi la'aanta maxay tahay robot ma ihi laakiin mental energy-ga ayaan bartay psychology ayaan bartay focuskayga meel saxan geeyey meesha saa u jeeda adi meesha marka focuskayga saaraya maanta adigu waa kaa madow yahay because of meel kale ayuu saaraya that's why aan shifting idin soo leexinayo oo leeyahay halka aniga saaranahay soo istaagay meeshaas koritaanka yaala bedelista taala caqligaaga nasiinadii taala okay nuxuustii oo dhan baa taala halka that's why process driven mindset qofku markuu yahay no matter what waa series of trades ayuu ku xisaabtamaya okay series of trades that's it process waa raacaya regime routinekiisu raacaya risk management money management so on planskiisii systemkiisii okay thinking processku raacaya probability okay tracking ayuu sameynaya because process waa organized wuu yahay qofka sidaa maqasho waa qof process raacaya whatever you put your focus on that's what you see tusaale kale idin sheegaya laba qof waaye mid trade u qaatay midkii kalena trade u qaatay mid wuu lose gareeyey mid kalena wuu lose gareeyey midka kale lose gareeyey arliga dhan buu qaray wuu xanaaqay akoonkii wuu dagaalamay oo trade kale u qasbay oo balaankiisa ku jirin very simple and then akoonkii gubay midkii kale buuggiisa hore ka qaatay shashada iska damiyey wax buu akhristay labadaasoo ilaahay uma sinna maxay ku kala duwan caqli leeyahay 9 bilood urku 9 bilood what's wrong hal wax ku kala duwan midna waa ignorant wuxuu fahamsaneen midna waa educated person qof caqligiisa dhistay oo aqoonti fahamsan waa principles qofna focuskiisa waa outcome qofna focuskiisa waa process wuxuu fahamsan beri trade kalu heli and that's it he will make it always wuxuu fahamsan mindsetkiisa waxaa dhaysa always that one trade around the corner so why force it maxaa u qasbaya maxaa u dagaalamaya waa aqbalabe that's it ay mid kale laba trader mid win gareeyay mid kalena wuu win gareeyay ka win gareeyay wuu farxay aad buu u farxay markuu farxay aqlidiisa wuxuu sheegtay haddana inuu trade-kii intii in la eg ku galo suu haddana uu satisfy gareeyo ama uu qanciyo farxadiisa farxad kale suu helo that's okay waa shucuur caadi normal midkii kalena neutral waaye tv-giisa u dhacday fursad kale ma arko soo shaashadu iska damiyey soo on trade-kiisu waa xirto waa iska tagay kii kalena lacagtiisu celiyey waa
wax kale u qaatay interior kale criterias planks lacagtii u celi haddana lacagtii kale uu akoonkiis ku jirto haddana celiye zero meesha uga soo tagay ay labadaa trade ilaahay miyaysan u sinnayn waa badiyey okay wuu iska tagay kanna waa sii joogo waa sii trade gareeyay kan wuu khasaaray kanna wuu khasaaray kan wuu iska tagay kanna wuu dagaalamay waa ka marka that's the focus qofna focuskiis meel u saaraya diiradiis qof kalena meel u saaraya laba qof isku mid ah bataynu sheekadii maalinta hore ka sheekeynay ninka kale u imaanaya dhahay ii kala sheeg cadaab iyo janno ii kala qeex uu leeyahay war iga dultag waxaan ku sheegin male waa naqastay uu xanaaqaya seefta galka kala soo baxaayo uu leeyahay taasi waa cadaabta aad iga raadinaysaa kuu sharax marka dambe intuu dareemay inuu xanaaqayo is dejiyo fadhiisto taasina waa jannadii waa isxasilis daasid qofna suuqan cadaabi u tahay hab fikirkiisaana sababay cadaab bay u tahay jaxiimo kala kulul sababtoo ah wax maaliyoomi waxaad ka aaminsan tahay been yacni beenta ka aaminsan tahay runtiisa kuu sheegaayo oo ku dhibaateynayo oo aaminaadaada challenge gareynayo oo lacagtaada kaa qaadayo horor baa ka aaminsan tahay waana cadaab kan kalena neutral ka aaminsan yahay just wuxuu suuqu sameynayo iyo wuxuu yeelayo it doesn't care just process of marka waxa waaye Saciid bay su'aasha ku soo laabanaysaa Saciid kee rabtaa inaad noqoto adiga marka hadda ustaad maxsan tahay wax badan insha Allah waa lagu khasbay waa in fikrad loo soo sheegtay way insha Allah waa waxyaalaha tahay su'aal ku jawab noqonayo يخوف من البروسيس سامي إذا كانت outcome كنا نحوق سعر إن شاء الله يعني البروسيس نحوق سعر إن شاء الله تدارك أسبوع إن شاء الله يدرس أحمد النوافع إذا المعلومة ما ستها عادي إن شاء الله شيء هو السنة وأسبوعها بدورنا كولز إن شاء الله سيادة وحياة بدون هذا فهمت إن شاء الله marka qof kasta carefree state of mind ka marka yeelano the less you care about outcome wax kasta the less you care aniga fiir wallahi been misha I less care about ina loss gareeyo inaan khaldamo I less care about less markii intention dan ama emotion ama mataqaanaaye attachment dan ma igu jirto hatta waa heer waxaan gaaray markii aan khaldamo ceeb aan dareemi jiray which is a fair shame waa shame was emotion ku awoodo badan qofka ama shucuurta uu negative ka marka suuqa taxliilinteedu waa qarin jiray heerkaasaan gaarnay taxliilinta maantana less care marka la jecli ilaahu mu kala firayo ilaahu mu igu soo orto ilaahu mu igu soo gurgurto ilaahu mu igu soo xiimo ilaahu ma khaldamo ilaahu ma khasaaro I don't care I don't got marka la jecli because of waan aqbalay runtaan aqbalay beentii iyo khiyaaligii markaad iska dayso that's it less care about you don't care marka taas ayaa waxa la dhahaa less care hadaad noqoto waxa loo yaqaan aqliyadda carefree state of mind okay aqliyad waxa ku sugan tahay carefree you see loss okay winning as dana loss ku sugan tahay and you very simple very neutral waa laga yaabaa حدعي you good MT4 كاغا دافيرس وود غدود طلع طب كنت 20 60 60 طبعا غدود and you don't care still okay carefree state of mind كما كان نقطه and that's when you focus كاغا marka meel fiican and that's your clarity clear ka waxa uu arkaysid that suuq wuxuu kula noqonaa clear plankaaga wuxuu kula noqonaa clear waxa ku fududaanaysa positionka inaad iska xirto suuqi inaad gasho ka baxdo ku fududaanaysa without ease without effort la'aan bal eeg
suuq baa intaa gashay way kaa qabat inaad ka baxdo waa ka baxaysaa wallahi inaan balaayo kugu dhijisan jirin waa ka baxaysaa waa galay waa u bugi weyda Soomaa xir $30 loos ku xira $40 iska bax you just baka ka baxay waxa arkaysa suuqii dhirka u shareermo stop loss intuu kaaga dhaco 1% loss gareelay laakiin sidaas waa soo ba arkaysaa profit ka isla markaa kala baxaysa you don't care free state of mind waa sidaa okay because focus kaaga wuxuu yahay meel kale aad u fiican yahay waa meesha hadaynu korno walaalayaal runta idin sheegay sweet spot baa la weligaa allaha ma jeclaan sidaa kasoo degto okay maxaa loo yaqaan sweet spot waa meeshaan hadda taagan you will never post inaad usoo laabato tabarteeda ka tahay iga tagaala rabshadii naxdintii cabsidii kiriirkii wareerkii walbahaarkii walaacii kulli haddaad ka gadamo ka kormarto ma sulaamo sweet spotka haddii aad hesho meeshaase taagnaanaysa meeshaas waa meesha aad ku joogayso wax ku xashan doonto wax ku fikiri doonto markii focuskii kalaara tagay maalo thinking patternkaaga nuu fiicnaanaha fikirkaaga wuxuu noqonaha fikir saliima oo ku salaysan yahay marka insha Allah maanta hopefully waa sidaa haddaad rabto if you want to make consistent money you have to put your focus and effort the reality okay the process waa inaan focus kaaga saarto the accept of loss waa inaan focus kaaga saarto that's it there is no other way around wax kale ma jirto haddaad rajo rabto waa rajo runta ku sheeg haddaad rajo rabto suuqa rajo ka leedahay waa inaad leexiso energygaas una leexiso dhanka saxan haddii kale asaga ayaa ku dhibaatoyn doona waxaa saaray sidoo ku khaladka ah oo maanta dhan soo jiidaysa khaladkaas unbaad maanta dhan samaynaysa khaladkaas unba maanta dhan ku celcelinaysa waxaas leedahay halkee la egeysta waxa laga haysto waa meesha diiradda kuu saaro so intaasaan ugu bixina casharka hopefully maanta inta idinku filan yahay marka walaalayaal environmentiga xataa maanta aad ku sugan tahay haddii focuskaagu meesha saxan saaran yahay kuma saameynayo because of mob ujeedid environmentigaaga noo iska hagaajiyo fadlan meel fiican samaysto wax ku akhrisan kartaan absolutely waxyaabaha caadooyinka fiican soo dhaweysta araggaagu ha qabto sida buugaagta waa in agtaada yaalaan meel kuugu dhow buugtaada saaran si aad u fahanto yani aad isla markii aad u akhrin karto consistency waa inaynu sameyno process waa inaynu raacno practice maalinta hore ardayda weli waa wadaan practice baynu u dirnay oo ku saabsanaa Allah mustacaan Mustafa ku saabsanaa suuqa inay joogteeyaan ilaa 20 trade 15 trade inay qaataan adhoodana tijaabiyaan systemkooda inuu toosan yahay weli haddii wax ka helaysayaan ay sameeyaan journaling dib u milicsadaan ay iska hagaajiyaan waxyaabaha ka hadlaysa koritaanka halkaas ku yaala it's always that reflection looking back okay wuxuu yiri Nikolai we don't connect the dots looking forward we connect them looking backwards qofku hadaa rabto in wax iskugu ka aadaan maaha in horeydaada wixii aad ka raadiso waa in dib u milicsi aad sameyso maxaa soo khalad maxaa soo saxday waxa soo saxday joogteynteed baa laga baahan waxa khaladana hagaajinteed baa laga baahan that's it marka haddii aad reflection sameynayso that means journaling baa leedahay you are tracking baa sameynaysaa wixii baad track gareynaysaa that's it bahalada soo gadada xamsi waxaan ku jeclaa darbigiisa uu shaandheeyay haddii soo diro sawir uu qorsheeyay maalintii tiradu qaadeen darbigu ku dejiyo warqad ahaan xataa taa waa caadi bahalada $1 baa la siiyaa umaleynaa xamsi isticmaalaya stickerka darbiyada lagu dejiyo soo gata sidaas sameeya isbuucisa u fiirso bishii u fiirso quarterka u fiirso sanadka u fiirso taas waa koritaanka you have to reflect back inshallah khayr badan baa erjeenay casharkan oo idin soo dhigayaa definitely maantiin waa insha Allah hal dadaalo halka laga soo insha Allah maalinta idin wacnaato doolay khayr badan baa idin